waxaan ka beeraynaa geedka kale ee weliba ugu muhiimsan ee doonayna weliba inuu baxo waa geedkan darayga loo yaqaana geedka ugu weyn ee muhiimadda ay tahay maadaama meeshiiba ay ku caan yahay geedaha waaweyn waxa weyn ugu muhiimsan ee uu ku caan ka yahay geedkaasina waa geedka darayga loo yaqaano waxaan ku yiri waa geedka darayga loo yaqaano deegaanka ummad ku si balaadhan sameysa deegaanka kale in la geeyo waanu jecelnahay geedkaasi in kastoo deegaanka uuna aad u wada jirin meelaha biyaha ilaahay uu ku manaysta ama manfaacada goonida ah leh unbaa laga helaa waa geedaha meelaha ama dooxale ama waxa weyn dixaa loo yaqaano kale ayuu ka baxaa geedkan kalena waxa loo yaqaanaa fresh balera geedkana fresh balera isaguna dhulka biyaha leh ka baxaa isaguna ma waxa dhirta dabiiciga ah kamid yahay dhirtan waa dhirta wasaaradda iyadoo noo keento wasaaradda deegaanka noo keento geedkan kalena waxa weeyaan hadaynu isla dayno waxa weeyaan geedkana waa xamarti geedka inuu naqaano isaga xamartu waa geedka caanka isagoo ah isaga laftiisa waxa weeyaan meeshana uu ku yaala وانا جيدان ريدني وين سجل فتيس أو إنا سيكور بينا عن طونينه كودي وانا جيد منفعة الله يسجنا كل اللي استعماله جيد كنا محيي سجنا جيد كان وحلو يقعنا جيد كان وحلو يقعنا ولا قربي بالو يقعنا قربي بالو يقعنا جيد كان وحويان ولا الوسائل إنه سجنا نوك هنتي مرابا ليلا ومرا بلاد بليلا سجنا جيدها وحويان حتى وين نو بيري جيدان واحد شرته وحويان لان بيرنا وسائل نوك هنتي بشرته وليبا كود لبو كلية جيت في المراجع مركان من بلادي مرة وطني بالله ميد وطني ميد بلادي وكلية جيت كان جيت كنا وحويان وقرع ولا لو جيت كنينا جيت كوحوين وهذا ده هذا كون عنشري وطن كوين جيت كقرعة سجلفتي سجيدها على بقوليو كميتي كوده جيت كانوا كلام جيت كي وحوين جيت كان يحلي رأسك geedkan waa isagu geedaha wadanka ma laakiin geedkan waa geedka dawladda isaga loo isticmaalo wuxuu leeyahay isaga moogan waxa geedkaasina isaga waxa weeyaan geedka xiga loo yaqaan dooxa waxaan doonaa meelaha biyo qabadka oo kale inaanu waxa weeyaan biyo qabadka uu naga difaacay isagana meel fog ba hadda laga keenay isagoo yaryar gabiilayba isagoo yaryar baa la keenay dalkan baa laga keenay gabiilay baa laga keenay geedka waxaana loogu talagalay biyo qabadka oo kale inuu naga difaaco hareerihiisa la raacay si ay daaq u fidin iyo la raacinaya wax badan baad ka beertay isaga insha Allah waliba waxaan jecelahay waa isagana halkan bacban ku diyaarinay dib isagana waa loo qaadaya isaga waxaan doonaynaa in la raaciyo xilli roobaadka doodka si uu u difaaco kuwana كوني وحوين هاي وجدها كلا طبيعي جاي وعن هنا جديه درت له كوني وكل درت يد له استعماليا طبيعي جاي جيت كأكل أنا جيت كسيتون كلو يقانا وحوين سجلفتي سدوا سو منفعة كتير لكن جدها ده وحوين منفعة سو كتير لكن سجل ماشى كل يوم نشألين ماشى كل يوم عليه ماشى سجل كل وحوين وضاير يحمل نقول ما سنيو جيتها marka halkan waxa ugu badan ee lagu beero wax weeyaan waa dabiiciga wadaniga dalka deegaanka ka baxda dhirta la manaafacadsanayo baalka way ku yartaa maadaama tan laftirkeeda la manaafacadsanayo xoolihii isticmaalayaan oo ay isticmaalayaan dadkii harsanaya daawo loo isticmaalayo halkaana waxaad ka beerteen halkaasna waxaan ku beernay khudraddan ku beernay si aan uga maarno de waxa weeyaan maadaama aan shaqaalanahay waxa weeyaan wax hargeysan nooga yimaada muhiimadda in ay tahay macnaha haddii aan biyo haysano waxa weeyaan in yaroo de waxa weeyaan anagu aan isticmaalo anagu aan isticmaalinahay khudradda ayaan ku beernay tamaandhadu ka mid tahay kaabashir iyo koosta iyo waxaas ayaan ka beernay si aan isku filaasho yar anagu de waxa weeyaan halkan wuxuu doonan lahayn maadaama biyo haysano si anagu aan isku filaano anagu aan isdabirno وصاحب يال halkan waa halkii uu noo sheegay muxiidiin waxa ka beeran oo kaliya taa inta ay shaqaalaha beerta jooga isticmaalayaan kamid yihiin khudradda inaga dambeysay koostada mid hore loo beeray iyo mid imika la beerayo way ku jirtaan halkan sidoo kale xabuubtiyo aad u waaweyn baa ka baxaysa runtii way ka maarmeen magaaladii way ka maarmeen inay magaalada maadaama meeshani doox weyn uu maro waqtiyada qaarkeed roobkaas sidoo kale ay go'doon gasho magaalada waxba uguma baahna nin waxa yiri hore Soomaalidu baahbaahdo
wixii beerta ku siisa bahdaa kuma siisa leeyahay marka ninka soo beer leh waxaan leeyahay difaac soo beertiisa habeen صاحب يال halkan waxaan kula kulanay ninkan fardaha saaran waa farda full way saaxib soo dhawow faraskan iyo halkaas ka keentay saaxib wandhow faraskan waxaan ka keenay kan kal qoray halkaas oo dalxiis laga sameeyay marka maanta soo jimicsiiyay marka kal qoray bal wax xanaanay kal qoray bal wax xanaanay saaxib mar intee faras way waa 12 faras saaxib marka faraskan magaciim faraskan timayare marka uu adaa tababarayo marka faraskan tababarkiisa dhawaan ban bilaabo marka waa u socdaa sax hay'inu noqon rajeenay marka kuwa kale meesha jooga laakiin waa hay'in Soomaa qaar baa hay'in qaarna waa yar yihiin saaxib marka dadka way tagaan imka waa dalxiis yimaada qaar baa yimaada dawladda caadi ah dhaafku buuxsimo la xidhayno marka dhaamka la xira ayaa la rajeenayaa wali inay fardaha iyo dadka dalxiis ku yimaadaan Soomaa aad baad mahadsantahay saaxib faraska kaxee ana oo ka aragnay صاحب يال صدر كيسان با wax saaranahay faras weeye waxyaabaha deegaankani cajiibka ay ku tahay uu kamid yahay fardahan waxa lagu xanaaneeyaa dhaamka kal qoray oo ah mashruuc aad u balaaran oo biyo gelina isaguna dhawaan uu hirgeli doono xariga laga jir doono maadaama wax yar uu dhiman yihiin saan maqlay fardahan waxay kamid yihiin fardaha lagu xanaaneeyo meesha dalxiis ahaanta loogu talagalay weeye bal marka faraskan waxa la yiraahdaa timayare aan saaranahay muuqaalkiina halkan baynu isku soo gabagabeyn doonaa muuqaalka hadduu halkaa soo gaaro saaxiib yaal subscribe gare sababtoo ah kama gaarayno deegaankii kale ee geedeeble inaan maalin kale ku soo noqono mooye aad baad mahadsantihiin bal waxaan isku dayiyaa inaan kaxeeyo walo aanan inuu aayirka ila socdo mooye aanan orodsan karin aayirka inuu la socdo naftayda ma nacay saaxiib yaal inaan muuqaalo fara badan idin soo duubaan rabaa faraska ka dhaco cid muuqaal idin soo duubtay waaysan marka si aanad idin waayin waa inaan aayir ila socdo